warbixintan iyo muuqaalkan waa mid aysan doonayn inay aragto kooxda taagta daran ee Daesh, sababtuna waa inay dhibsanayaan howlgallada iyo dabagalka joogtada ah ay guyaal badan ku hayaan ciidanka BSF hawdka badda iyo buuraha gobolka bari ay gabaadka ka dhigtaan. BSF ayaa ka fulisay howlgal dhanka badda ah goobaha loo yaqaano Dekatu Raxma iyo Hantara. dhaqdhaqaaqyadan ayaa lagu raadgoobayay rag ka tirsan ururka Daesh, kuwaasi oo si dhuumaalaysi uga raaca doonyo halkan kana keena shixnado sahay ee dhanka dalka Yemen. intii uu howlgal ku socday waxay ciidanku ku gaareen halkaasi gaari kaas oo looga cararay goobtii ay ciidanku ku socdeen, halkaas oo ahayd bartilmaameedka ciidanka. waxaana saarnaa gaarigan budada ay adeegsadaan marka ay qaraxyada sameynayaan iyo qalabka ay ku qotaan dhulka godadka ah ay degan yihiin. ciidanka ayaa ku raad jooga sharwadayaasha Daesh, kuwaasi oo si dhuumaalaysi uga gudba xeebaha Hantara ee degmada Qandala una kala safra gobolada dalka iyo wadanka Yemen oo ay ka soo rartaan kontarabaan badan, halkaasna ay ka geliyaan buuraha calmiskaad ee gobolka bari. BSF waxa ay ku boorinaysaa shacabka ku dhaqan deegaanada xeebaha ku dhow sida hagar la'aanta ay ula wadaagayaan khatarta cadowga Soomaaliyeed.